بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan maanta jeclaystay inaan isoo bandhigo mowduuc la yiraahdo qorista habboon ee af Soomaaliga. RR amba introduction waxa afka qalaad lagu yiraahdo. maxaa keenay kulli inaan mowduucan oo kale aan ka hadalno? waxaa keenay kulli dib jirta oon aragnay in dagaalkii ama qoraalkii af Soomaaliga iyo qawaacidiisii iyo xeerarkiisii in la gaarsiiyay dhaawac weyn. marka maanta qodobyadaydu aan soo bandhigi doono waxa weeyaan kan ugu horeeya bal barnaamijkan aan maanta bilaabay iyaan bal u heli doonaa magac taxane maxay taxanaha noqon doona barnaamijka taxanaha noqon doona inaan magac u helno. laba hal qabsi dhibtan aan sheegayo iyaan markhaati uga dhigan doonaa maase uu curiyey abwaan la yiraahdo Cusmaan Cabdinuur Xaashi oo loo yaqaano oo macruuf oo buugii ugu dambeeyay dhadhaab qoray. saddex saxiixda qaladada dagaalka amba qoraalka af Soomaaliga dhaawacyada gaadhay yaan isla eegi doonaa oo maxay isla baari doonaa noocyada yihiin. afar waxaan u raadin doonaa maxaa xal ah halkaasna wuxuu noqon doonaa kulley inaan baraajic tilmaamno markay khalad waxaa oo kale ay yimaadaan sidaa oo kale ay dhacaan waxaa maarmaanaya inaan reference meel loo noqon karo maraajic oo kale oo labada tiir ee loo noqdo xilli kasta marka luuqad la doonayo in la sal dhigo oo xal loo raadiyo waxay ka maarmaanaya noqonaysaa inuu qaamuus iyo xeerarkii luuqadda oo waxa la yiraahdo naxway. barnaamijka magaciisa haddaan ku horeeyo waxa weeyaan magaca waxaan u bixiyey barnaamijka turxaan bixiye iyo barbaarin sahanshe. turxaan bixiye turxaan waxa weeyaan waa mashakeladaha meelaha maxay ahayd qabyooyinka waxyaalada dadku ay galaan ayaan turxaan bixinaynaa oo waan ifinaynaa waanan xallinaynaa. barbaarin marka dambena maxaa ujeedadu waxa weeyaan waa inuu barbaarin education waxa la yiraahdo inuu barbaarin aan sahadino oon ku barbaarino ayaa lagu barbaarinayaa caruurteena ama ubadkeena ama da'yarteena oo dhanba amba waalidkuba hadduu u baahan yahay si uu caruurta u badbaadiyo waa inuu isaguna waxaa helo waayo waxaa la yidhahdaa faaqidu shay laa yucdi inaan isagu waxba haysan waxba ma tabin karo. marka maasadan baa cabdulqaadir faarax bootaan ayaan iyaduna haldhig uga dhigaya oo na tusaya slogan waxa weeyaan waa halku dhega mawduucan aan ka qabsanayna waxa weeyaan ku dhaado afkaaga u dhiibo dhashaada. ku dhaado afkaaga ku faan ku dheg dhowr xaq dhowr maxay ahayd kori waxtar u yeelo markaana u dhiibo dhashaada waa maxay ahayd waa haldhiga maxay ahayd barnaamijkan u sameyno. waxaana uu yiri murtida kala soo baxay waxa weeyaan cabdulqaadir faarax bootaan Soomaalo qof dhoohan intaad dhaqankaa fog jacayl dhadhabaysid u dhiibo u heli dadkaaga ku dhaado afkaaga u dhiibo dhashaada. macnihiisu uu iska cad yahay waana la fahmayaa. waxaan uga jeednana waxa weeyaan inaan soo saarno tafiir ama dad aan naga dhaxla wixii ay noo soo tabiyeen oo wanaag ahaa iyo xadaarad ahaa iyo luuqad ahaa ee dhaqan ahaa ee sooyaan lahaa inaan u tabino ilmo aan soo saarno ilmo odhanaya ayam Soomaali oo ku faanaya wixii ummadiisu lahayd waxaana lafdhabar ka ah luuqadda. waxaan markhaati ka dhiganayaa abwaanka la yidhaahdo Cusmaan Cabdinuur Xaashi. Cusmaan Cabdinuur Xaashi ayaan markhaati ka dhiganayaa maxay ahayd farteena maasadaas oo aad muxuu ahaa waarki doontiin dhibtan maanta aan ka hadlayno ee afka soo waajahday inuu maasadaa kusoo koobay. way yar tahay abwaaniin luuqadaha kale markaan aragno hadday Faransiis noqoto Ingiriis noqoto Spanish noqoto Carabi noqoto abwaaniin ilaa halkaas intay gaadheen ku sheegaya dhibtii naxwaha ama qawaacidii ama ruulkii ama xeerarkii soo gaadhay luuqadda ina maaso ay kusoo koobaan maxay way yar tahay. marka mise Soomaalidu nicmaday haysato ma garanayso. maasadii haddaan nii weyneeyo isla akhrino waxa weeyaan farteena ka daaya dheerdheerkow farteena ka daaya dheerdheerkow dhammaystira shaqalka kii dheerow xarfaha laba dhaca ha daawicino hamsaha dhaabada ah ha dhaylsanino u dhaama sidaad
udhumiseenay marka labaad wuxuu leeyahay dhigiisa qalaadba way dhistaan dhigiisa qalaad luuqadan waxaa u dhigmaya ingiriis noqotay faransiis noqday carabi noqday spanish waxaa doonaysid dhigiisa qalaadba waydin dhistaan higaadiisa waad dhudhumisaanoo dhaliishana waad ka dhowrtaane dhammaanba farteeda dhoolka gasho u dhaama sidaad u dhumiseenay wuxuu sheegayaa markaas afkeenna isagoo sheega wuxuu yidhi sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa afku waa qaacidadii soo saaraya iyo fudaydkiisa sidaad u dhahdaan af soomaaliga ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaa dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiilta kan hooyay ku dhiirida dhabiiltan eriga haddaa iftiimiyo waxay ka dhigan tahay waa raysalmaan waa qasnad waa wax la xisaab lagu soo helay oo maxay ahayd la macaashay oo ay noo soo tabiyeen waalidadeen amba waxay awoyaasheen inaan inaguna ku dhiirano oon ilaashano abwaankaasi muxuu sheegayaa haddaan sii sharaxno abwaankaasi waa kaas waxaan soo bandhigay intii cuduraya uu ka hadlay waxa wuxuu yidhi farteena ka daaya dheeldheelko marka dheeldheel waxa weeyaan ciyaarta iyo jaanrogantan maxay ahayd bilaa nidaamka ah ee layska la wada un ka daayo uu leeyahay muxuu yidhi markaas maxaa ugu horeeya wuxuu yidhi dhammaystira shaqalka kii dheer shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban oo la dhayarsanayo oona dadku ay arkaynba mashkiladda ama dhibta ay keeni karto ayuu ku hadlay xarfaha laba dhaca ha dhaawicina xarfaha laba dhacana waa kuwaas waxa la yidhahdaa luuqadda lagu yidhahdo gemination ingiriiska amba doublet maxay consonant amba double consonant faransiiska lagu yidhahdo oo la dhayarsanaya iyadiina waxaa kaloo uu sheegay hamzaha daabada ha dhayalsanino hamzihiina isagana waaba laga iloobaaba meelo ta ugu dambaysana wuxuu sheegay afku qiimaha uu leeyahay afka soomaaligu amba wuxuu kaga duwan yahay luuqadaha kala celi sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaa sidaad u dhigtid amba u qortid unbaad u akhriyaysaa siduu u qoran yahayna waad u dhigi doontaa waad u akhriyaysaa dhawaaqasa waa la qaataaye afkeena ku dhiirada haddaan isla eegno sii iftiimino dhirta ka imanaysa marka la dhayarsanayo shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban waxaa loo yaqaano long vowels ama levoyer long oo kale dayarsigu halkan tusaale haddaan soo saarna wax weeyaan adigoo qoraya adoo ujeeda inaad qortid san haddaad laba a ka dhigtid oo dheeraysid waxa weeyaan saan bay noqonaysaa maqaar san haddaad doonaysa inaad saan qortidna haddaad a ka dhigtidna san bay isku bedelaysaa markaa dhibtaa weyn haddaad doonaysa inaad saacad qortid ood a ka ilowdid wuxuu noqonayaa sacad qof bini aadan aad u yaadhay marka messagekii iyo waxaad tabinaysaba khalkhal baa ku imanaya wayna dhacdaa meel kastana waa kala kulannaa t v hadday tahay jaraa'id khaladadaas way yimaadaan tan baa kasii daran afka hooyo dad badan oo dooneen ay qoraan ama buugaag waxay qoraan afka hooyo oo obay ka iloobaan iska hooyay ka yaraadaan afkii baa hooyo laga leeyahay marka khaladada dhici kara marka la dhayarsado waa inaan tusaale ka soo qaaday waxaa kaloo jira dhibta kale marka xeerkaas isagana la dhayarsado ereyada labalaama oo dadku ay kusoo koobi jireen leeda manala garaaba manala oo maxay todoba xarfahaas haddii la dhayarsado sidaas badanku dadku ay sameeyaan markay qorayaan dhibta ka imanaysa waxa weeyaan haddii aad doonaysa inaad ka hadlaysid nin caraba oo ra'da dabal carab nin caraba waa laba ra' haddaad ra'da ka ilowdid carab bay noqonaysaa nin idiloo carab oo jinsiyadiisa sheegaysay marka carab wixii la odhan jiray tong ayaad u bedelaysaa haddaad doonaysa inaad qortid waxaan samayn doonaa beri tomorrow badooma haddaad ra' ka ilowdid beri bay iska noqonaysaa wax bilaa waqti khaladada waaweyn ee ay dhici karto haddaad xeerkaas soomaaligu leeyahay haddaad maxay ahayd jebisid inuu ereygiiba isbedelayo waxyaalo badan oo qosolaa jira dhanka jaraa'idka haddaan iga soo qaato cinwaan jaraa'id baan ka akhriyay maalmaha ka mid ah iyadoo la leeyahay dad mudaharaadayo inaa xabad lagala hortegay xabad baa lagala hortegay dadkii yaa meel maxay ahayd jaraa'idada kolley soomaalida ka arkay marka xabad iyo xabad baa la isku khalday baa laga iloobay maxay ahayd haddii la yaraado laba baa laga dhigay xabad waxay ka dhigtahay xabad baa laga hortegay waxa weeyaan waa shafka xabadka waa la wada yaqaanaa waa laabta haddaad xabad tirahdina waxa weeyaan waa xabad rasaasa ama hal iyo noqonaysa markaas taasina waxay ciwaanadii laabaa markaa khalkhal gala mararka qaarkood waxaa jira isaguna halkan kale
cadow iyo cadow markii mar doorasho dhacday ciwaan kale isagana khalad sheegay in kastuu maxay ahayd nin kale oo maxay ahayd aanu taamaarigi maxay ahayd nin kale oo maxay ahayd luqada maxay ahayd faaleeya ayaa ka arkay isagoo leh waxa dadkii waxay qoreen ciwaankii khalad waxa la yidhi waxaa la doortay cadow cadow baa la doortay cadow bay dooneen inay doortay inay qoraan cadow waxay ka dhiganay nin wuxuu ka yimid ereyga cadow waa caddaan oo waxay reer koonfureedka qofkan cadow markay yidhahdeen cadow markay yidhahdeen waa caddaan baa ayuu asalkiisu tilmaamaha adjectiveka ka yimid meese haddaad da qura ka dhigtid cadow baa la doortay marka halkay khalkhalka galaya luuqadda iyo jahwareerka galaya yaa tusaale halkaa naga tusaya mararka qaarkood badda tana waa qaacid marka qodob ereygu qaato waxa weeyaan waxaa laga maarmaan ah in laba da laga dhigo bad baad oranaysaa markaad qodob u yeedhisid c markaad leedahay waa da-diisi waad udaynaysaa da kale baad ku daraysaa mase haddaad da-daa ka tuurtid iyaduna badda bay noqonaysaa marka hataa codkiiba isu dilay badda maxaa leedaa badda oo dooneen inuu dareemo jaamacad da-baa ugu dambaysa markiisii hore haddaad doonaysid the university haddaad doonaysid da-deedii horead u daynaysaa da kalaad ku daraysaa jaamacadda markaas waxa weeyaan waa xeerkii labaad ee lagu hargudbay xeerka saddexaad uu sheegay hamsaha dhaabada ha dhaawicina hamsaha dhaabada ha dhaylsanina hamsuhu waxaa la yidhahdo waxa weeyaan waa shibana sidiisa inaan loo ixtiraamo u baahan oo ereyga hadduu meeshuu ku jiro waa inaad joogsi codba weeyaanba haddaad codkaa laga boodo ereygii jahwareer baa ku dhacay tusaale ana siinaya waxaa jira marka la leeyahay la iyo la markaad qoraysid la-dan waxaa la yidhahdaa ninka la hadal waa magacuyaal waa waxaa la odhan jiray pronoun personal pronoun amba pronoun personnel baa la odhan jiray la markaan leenahayna la-daa hamsahaasi wuxuu ka dhigayaaba inuu macno kale ereygii u sameeyo waxaan iminka haddaan kale la soco haddaan kale ninka la soco waa sibaa la fahaya ficilkii iyuu raacaya waa pronoun personnel ninka la soco haddaan korado saacad haddaan ku weydiiyo waa shantii oo shan la-adii waa kaa la-daas waxay leedahay waa wax dhiman marka maxaa labadaa la waxaa kala bedelay hamsaha qiimuhu leeyahay haddaan ka mida haddaan la qoro waxay micno leedahay ma jirto tusaale ahaan erey baan tusi iminka laanta geedka markaan qorayo laan haddii aan idhaahdo haddaan hamse ku daro la-aan ayaa isu bedelaysaa haddaan doono inaan la-aan qoro oon hamsii ka iloobo waxaan qoray la-aangeed wax kalaan ka sheekeeyey markaas waxay kutusaysaa iminka banaan oo kale haddaan doono inaan qofkii wuu ba-an yahay ba-naan baa lagu sheegay odaygii xanuun baa lagu sheegay haddaan ba-naan hamsii ka iloobo banaan baa lagu sheegay baan odhanaya marka khaldadaas oo kale iyo kuwa ka badan yaa af soomaaliga dhaawac soo gaadhsiiya ood arkaysin ereyadiisa isku bedelayaan haddii aan xeerarkaas oo marka la bilaabayo de meesha laga bilaabay adjuudiyaadka ugu horeeyay luuqadda laga bilaabayay aan xilli kasta ku dheerdheernaa oo ku ciyaarnaa dhibtaana waxaa noo sheegaya abwaankeena annaguna de waan aragno maxay ahayd waaqica maxay dadka soomaaliga akhriya amba xeerarkiisa garanaya aad bay u dhibtaa af soomaaliga halkan xeerkuu sheegaya baan idiin sheegaya sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa af soomaaligu ma adka sidaad u dhahaysid amba sidaad u odhanaysid sidaad codka kaa soo baxaya unbaad qoraysaa isma dhibaysid tusaale ahaan maroodi baad qoraysaa ma haddaad higaada garanaysid roo way dheer tahay waa laba o di way gooban tahay maroodi baad qoraysaa maroodi cadhoole carruurta waa tii la baryayay carabjalaqsiga amba carab layliska cadhoole baad qoraysaa dha haddaad garanaysid cadhoole le-daasi afarsiisku emiyo wax leedaa jira amba maxay ahayd muyat maxay ahayd leetar baa jira soomaaligu male waxaad qortid oo waa inaad wada akhrisid cadhoole le-daa waa inaad akhrisid hashi bay dadka qoraan hashi waa inaad dhowrtid oo iida qortid cosab watan haddaad tiraadidna wadan bay noqon doontaa watan erey haddaan nii tuso waxaad qoraysid waxaad akhriyaysid waa waxaad qoraysid iminka fure waa kii waa muftaax fur ma odhan karaysid haddaad eedaa kelidu fur bay noqonaysaa verbi bay noqonaysaa marka waa inaad fure tiraadid waa inaad qayb waa inaad siyada u qortid waa inaad ereyada laysku dhafo muu compose male soomaaligu isku wada dhig buu ku leeyahay halkan isoo wada dhig wuxuu ku leeyahay dib u heshiisiin waa dib u heshiisiin erey baa la iskaga dhigay dib u heshiisiin sidiisaa baad u qoraysaa waa kan ereyga olole
olole marka olole markaad samayn sidii dadka la abaabulayo waa ka ololihii maxay doorashada sidaa wada qoraysaa markaas waxa weeye xeer maxay ahayd sidaad u dhaxdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaana wuu u dhahmaa af soomaaligu markaa wax adag maaha next waxaan soo aragnay iminka oon markhaati uga dhigtay maasadii abwaanku noo soo jeediyey in qaladadu badanaa ay ahaayeen kuwa laga galo eriga ama waxaa la yidhahda mooga ama word iyaa qalada laga galaa soomaaliga eriga xeerkiisa maxaa ku duugan maxaa dadku ma fahmaan shaqal dheer iyo shaqal gaaban oo naga soo aragnay waa eriga laga galaya khalad shibanihiisii looma ilaalinayo hamsihiisii waa omission baa lagu sameynaya ama waa liiloobaya waa laga tegayaa markaas saddexdaa cudur ereyga ayaa loo geysanaya waxaa kaloo jirta weeraynta weerda waxa la yidhahda waa sentence-ka ama phrase waxa la yidhahdo isagana cudurka loo geysana waxa weeyaan xeerkii lifaaqa maxaa ereyada maxaa israacraaca maxaa israacraacin maxay astaan amba waxa la yidhahda punctuation uu leeyahay khalado badan oo sidaaya marka iyadu baa nagu cuslaanay bal horta bal ereygii una ka soo baxno ereyga markaan saxno iyaan weerda sixi doonaa baan rajaynayaa marka horta ereyeynta iyo weeraynta labadaba cudur baa maxay khaladaan la gaarsiiyaa next tusaale ayaan maxay ahayd marar aan duruus soo jeedinayay waxyaalada aan dadku ugu cadaynayno in af soomaaligu ereyga haddii maxay ahayd sidiisa shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban loo maxay ahayd ilaalin waayo waxyaalada maxay ahayd jahwareerka iyo isbedelka ka dhici karaa iminka shaqalka dheere la yidhaahdo ayaan xagga kusoo bandhigaynaa af soomaali baan laba ereyoo maxay ahayd isbarbardhigaynaa english iyo faransiiski baan ku macnaynaynaa ereyaduna macnahayga markana waxa weeyaan iyagiioo erey kula ku wada jira tusaale san iyo saan waa ninka markii soo sheegay san aqlu leeyahay waxaa la garanaya micno gooru leeyahay waa nose amba waa ni saanna waa skin amba waa po amba waa maqaarkii marka maxaa labada erey kala bedelaya waa shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban baa kala bedelaya macnihii halkan iyo shibanayaasha maxay ahayd shaqalada soomaaliguna waad iyaarkiisana waa shantaas waa a i o u iyo kuyo iyo dhaadheer waa shan dhaadheer iyo shan gaagaaban هد بالي هد تدخل بدك إيري جماعة قناني وحيوان والنفطة هد لما دوي وكل قف ساعد يساعد عشان إلى دقوني من لا مرضى هدنا لما دوي كروا كي يقولون كلها هد وحويان والنفطي هذا وانا قناي وصار يلا واحد عنيني محاك الدوي وحاك الدوي شغل داري شغل قهوة تن حك وأقضي حك يحوك حك وور صحة وهبان والسجن xoogna waxa la yiraahdo waa powerkii labada eri maxaa kala duway waxa kala duway shaqalkii dheeraa shaqal hadaad wax ka ilowdin macna kala u yeelanaya hadaad ku biirisid macna kala u yeelanaya tin iyo tin waa tin tima ah iidi tinna waa geedkii halkan waa ka dabtay adoo qoraya hadaad doonaysid inaad ujeedid maxay ahaydeen suun baan doonaya aqalka dhex raadinaya adoo sheeko ka sheeganaya hadaad ku dartid sun baa raadinaysaa sun adoo raadinaya haddaad ada ka tagtid maxay ka tagtid sun baad raadinaysaa marka ereygu isbedelaba maxaana keenayaan waa shaqalka dheer iyo shaqal gaaban bal aan eegno iyagoo shaqalkii dheeraa iyo shaqal gaaban oo erey kula kuda jira shaqalkii dheeraa aadi iyo aadi saacad waa adiga arkaya iyagoo kuda jira eebe waa magaca ilaahay ee soomaaliga eebe waa eebe saa wayna qortaa haddaad xajid ebe bay noqonaysaa هذا أنا كنت ساعد من نقرأ ساس بديلسا هل كان بعيد وبعيد ودير كحنا لنا بأوريكس فرانسيسكو غير هذا هل كان هويو هذا كنت تقدر هويو اسكو ينقل دوتا صرصور وحنا الطريقة يعني ساعة وريجا بدك سنتي لنا أما تايت واي إنجليز كانوا غير هذا وحنا الريدي شقلة ديرا وأنا سلاو حفيدين إلى لسين مركز قريسين halkan waxa weeyaan xeerkii kale lagu xadgudbay isaguna gemination wuxuu ahaa gemination wuxuu ahaa in xarfaha qaarkood oo waliba shibanayaasha shaqalkii waa soo dhamaynay shibanayaashu inay iyaguna laalaamaan waa tusaalayaal xaggan idin soo bandhigayaa waxa weeyaan kuwa laalaama xeerkii soomaalidu ay sameeyeen waxa ka waa 7 xaraf oo soomaaliga laalaama 7 xarafna waa kuwaas waa ma waa na waa la waa ga ورا ودا يبا هكا محل لي ما نلا غلاد بو سي لو حفظو يا ابوانيتي نو سمين لو خدا
marka waxay ka dhigan tahay inaad ingiliisna waa waxay ka dhigan tahay buugag badan baan ka arkay marka halkan waxa weeyaan dad maxay english haddaad doonayso inaad maxay ahayd inaad maxay ahayd qortid saddex maxay dad maaha waa daab waa english daab waxay ka dhigan tahay waa aabbo.